Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Kulanti wanaagsan daawadayaasha qadarinta iyo xushmada inaga mudan meel kastoo aad dunida ka joogtaan si walba oo ay noola socotaan. Halkani waa Daryeel TV oo idinkugu helan inuu idiin gudbiyo wararkii ugu dambeeyay dhacdooyinka Soomaaliya iyo dunida caalamkeeda. Akhbaaraadkeena ugu xiisaha badan ee qaybteena aan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah Ra-iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa waxay tahay sababta ugu weyn uu dalka u gelinaya qalalaasa inay tahay inuu ku helo kursiga uu kusoo celiyo madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud isagoo rabo xisbigii hore ee Jamhuuriyadda inuu kusoo nooleeyo xubintaas oo ah Jamhuuriyadda xisbigii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya hadda kula jira loolanka dalka Soomaaliya. Xisbigaas oo ah xisbi uu rabo inuu kusoo celiyo Xasan Sheekh Maxamuud kursiga uu matalaya xisbiga Jamhuuriyadda kaas isagoo ku dooran doono inuu noqdo ninka u fadhiya Kenya safiirka dalka Soomaaliya maadaama uu galaynin sanadkan tartanka doorashada dalka Soomaaliya sidaas ay tahayna uu ku buusi karo dhinaca Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dalka Soomaaliya. Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaasan ka fiirsanin xilka uu magacaabay Ra-iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya kadib ahaan isagoo ay ku dirqiyeen Fahad Yaasiin iyo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Mudane Qoorqoor. Xogo hoose oo aan helin ayaa waxay sheegayaan inuu ahaa xubin firfircoon oo ka mid ah xisbiga Jamhuuriyadda isagoo markii dambe ay soo ifbaxayeen muuqaalo muujinaya ama sawiraan hore ay isla galeen. Sawirka hoose sidaad uga jeedaan waa Faarax Cabduqaadir Faarax Sakiin, hogaamiyihii hore Jamhuuriyadda, Cabdiraxmaan Odawaa, wasiirkii hore ee arrimaha amniga, haddana ah xildhibaan, Ra-iisul Wasaare Roble, iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Ra-iisul Wasaare Roble oo ahaa nin hore uga soo shaqeeya hay-ado iyo meelo kala duwan oo ah qandaraasyo haddana ah injineer ayaa doonaya inuu doorashadan carqalad weyn ku geliyo dalka Soomaaliya isagoo kaga hor wixii awoodiisa ah. Bashir Goobe uu magacaabay hay'adda sirdoonka NISA ayaa wuxuu ku sameeyay xilli qaadis Yaasiin Farey. Fadlan ha naga hilmaamina subscribe-ta, like-ta, wixii falanqeynna commentiga noogu reeba.